بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو wanaagsan daawadayaal meel kasto codkayga iyo muuqaalkayga ka soo gaarayo ku soo dhawaada waraysi gaaban oo halka kula yeelano mid kamid ah khubarada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland sida aynu la wada socono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen dhigiisa dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo kulankooda ugu horeeyay maalintii shalay oo isniin hayd oo markaasi qabsoomay maanta kulankii labaad ay yeelanayaan Soomaaliland iyo Kenya hore xiriir rasmi ah oo aan ahayn in cilaaqaad dhinaca ganacsiga iyo isu socodka bulshooyinka ah muu jirin sa aynu la wada soconno Kenya kuma lahayn halkan xafiis diblomaasiyadeed oo markaasi shaqeeya hasaate Soomaaliland waxay ku lahayd ama ku leedahay dalka Kenya xafiis shaqeeyo oo markaasi safaaradda Soomaaliland ee Kenya waxay ku taala magaalada Nairobi si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Soomaaliland ayaa toddobaadkan ka helay martiqaad dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta tallaabo diblomaasiyadeed oo Soomaaliland si weyn looga soo dhaweeyay isla markaana dadka falanqeeya siyaasaddu khaasatan arrimaha dibadda ay ku tilmaameen mid muujinaysa horukac dhinaca horumarka siyaasadda arrimaha dibadda laga sameeyay haddaba dhinacayga waxaa fadhiya Axmed Yuusuf Cilmi oo ah khabiir muddo dheer la soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland markii dambe wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda gudaha aan raahday ee la taliye u noqday ayaan doonayay inaan ugu horreyn weydiiyo muhiimadda uu safarkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Kenya uu leeyahay Soomaaliland khaasatan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما هذا ودنا باسكله هدي أدي وديسي وما سنتهاي ودوهاي مهمة أولية هاي السعودة الكاسي مدحوينها يفتق بلارن وهو جامين يا كنت نيروبي وطيدا صاقوبا ياد مهم يعني إن هذا المركب اللي حيو dalalku waa isku wada xilxilayhiin dal walbana danihiisu way ballaaran yihiin dal walbana waxa ku waajiba inuu dabagalo uu daba socdo danihiisa intii ay uga xidhbi karayso laga bilaabo wadannada ajaarka tihiin lagu xujisiyo wadannada aad isku mabaadi'da tihiin lagu xujisiyo wadannada taariikhiyan wax aad wadaagtaan Kenya haddaan soo qaato xad ma lehin inagu waxaase muhiima xadadku ma kala xidhaan dadka inaynu xidhiidh wanaagsan la yeelanno oo haddii beedakeed leeyahay kow ka bilaabma baayac mushtariga la isku firo labada dal unugyadii u adeegayay labada dal already inagu waynu leenahay wakiil baa inoo jooga halkaa aad shaqeynaya dadaalaya in halkan Kenya iyaduna ay ka furato waanu bilownay markii aanu wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeynayay ilaa gurigii way kireysteen way yimaadeen haddana hakad baa galay intii lagu dadaalo labo Kenyan Airline dayuuradoodu inay halkan timaado oo the flag carrier dayuuraduhu waxay sidaan calanka wadanka marka diyaarad ku timaado wadankii xiriir wanaagsan baad leedihiin siyaasiyan mowqifyada aynu wadaagno waxa ka mid ah Kenya in Afrika xadadkeeda sidii mustacmarkii kaga tegay loo daayo oo la taataaban waa qodob African Union ku dhigayo ku waajiba dal kasta oo ay Afrika ku yaalaan inuu qaato nimanka koonfureed ee halka jooga wali waxay daba socdaan shantii Soomaaliyeed oo NFD ka mid tahay oo gobol ka tirsan Kenya inana niri war hal ixtiraamo xadadkii sidii uu kaga tagay haddii kale dawlad isku rugmanayaan horaan ugu sheekaysan jirnay bacdama idinka xidigta madoobi ay dhigaso haloo daayo shan Soomaali waxa la ma jirin nin walba halkiisa joog
nin walba ilaahalkiisa ku nabadgeliyo nabad iyo walaalnimo ha ka dhaxayso iyana ay taagan yihiin gobol idinka midaan goosanana oo ka mida halkan dee innagee Kenya isku mabda'a markaa ina wadaajinaysa taariikhiyan innagiyo Kenya xidhiidh Kenya waa taariikhi mustacmarkii gumaystaa Ingiriis ayaa labadeennaba ina gumaystay af Ingiriis baynu ku hadalnaa labadeennuba dhaqanka iyo afkuna waa isku xidhan yihiin ciidamadii Ingiriiska u dagaalamayeen ka wada qayb galay oo shooda garabka inagoo isku haynaa ee kaar loo odhan jiray King's African Rifles in laga madaxweynuhu waan hubaa inuu ka faa'iideynayo taariikhdana uu og yahay waxaan intaa ku dari lahaa sidii wasaaradda arrimaha dibaddu ay u shaqaynaysay diblomaasigu waa geed yaroo la beerayo haddii albeenkeed leeyahay midhihiisa marka la gurtaa waa mar dambe ninkaa wasiirka Peter Munya oo nin saaxiibkaya halkan inoogu yimid aan ku soo marti qaadnay isagoo barasaaba Peter Munya waa wasiirka beeraha ayaan u gartay ninka jeeda waa Peter Munya Peter Munya waa wasiirka beeraha anay iskaashatooyinka cooperative fishery kalluumaysiga iyo industrialization afar wasaaradood ayuu isku hayaa waxa ku tusaysaa culayska iyo miisaanka uu leeyahay waa nin la saaxiiba reer Somaliland halkan inoogu yimid isagoo markaa barasaaba Kenya 46 barasaaba ay leedahay isagoo governor barasaaba oo markaa gudoomiye u ah barasaabyada halkan inoogu yimid waa soo dhaweynay waynu sheegnay taariikhdeena waan inoo heelan dhagaxii aanu maalinta dhignay midhihiisii wataa maanta la guranayo sidaan horeba u sheegnay diblomaasigu waa wax yaroo la beeriyo mar dambe midhihiisa la gurtaa raggii ka shaqeeyey mahad aanu celinayo nin weynoo Kogi Kawamiri la yidhaahdo oo isaga oo ah macallin wasiirka warfaafinta ahaan jiray oo xil iska saaray isaguna in aw geed gaaban iyo geed dheerba ugu joogsado in Somaliland inay ictiraafaan iyo waxa kale oo mahad celinayaa Cabdi Caawad shamado imika Norway jooga oo ka shaqeeyey lana shaqeeyey Peter Munya markii halkan noogu yimid nasiib wanaag wasaaradda arrimaha dibadda noogu yimid waanu wadnay markii dambana madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi oo markaa aan madaxweyne ahayn ayaanu xafiiska ugu geynay way sheekaysteen maalintaaba saaxiib bay noqdeen marka waa nin taariikhdeena haya xaqana kama gabanayo yiri inoona heelan marka goor bay ahayd xilliga uu halka yimi Peter Munya markii uu yimid waxa la socday odayga Kogi Kawamiri laba jeer inuu yimid baan rajaynayaa marna 18 May bay ahayd oo aan soo marti qaadi jirnay madaxda marna Kriibis uu yimid oo markaaba wuxuu daba socday warbaac mushtariga labada wadan hal la isku furo isagoo markaa barasaab ah si kastaba ha u dhacday way suurtageli weyday laakiinse dhagaxii ugu horeeyay wuu dhigay damiraheedina way naga maanta quraanaa alxamdulillah waayahay Suudi madaxweynaha Somaliland uu tagay martiqaadka madaxweynaha wuxuu ka helay Kenya si toos uga helay Soomaa ogaalkayga waxaan hubaa ninka ka shaqeeyay ballan loo qaaday inuu yahay Peter Munya iyo Kogi Kawamiri oo ahaan jiray ragii Pan Africaniska ahaa oo inta bari hore la xidhay Kenya taa u xidhay baa Allah naxariisto Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal warqada uu qoriyo iska sii daaninka warqadii baa lagu sii daayay dabeetana xil buu qaaday uu leeyahay intaan noolahay Somaliland waa adeegaya markii shalay kulanku dhacay khabiir baa tahay ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda oo in badan la shaqeeyay Somaliland diblomaasiyadda wax badan baad ka faahfaahsatay bal marka hore waxaad sharaxaad iga siisaa habkii loo soo dhaweeyay madaxweynaha ilaa iyo horeerka la dhisay campus baa la dhisay wafdiga madaxweynaha iyo halkaas lagu qaabilay haddana shalay madaxweynaha kulmeen Uhuru Kenyatta protocol ahaan iyo nidaam ahaan iyo
يعني maxay arrimahaasi inoo muujinayaan horta anigu waxaan ahaa head of protocol wasaaradda arrimaha dibadda muddo dheer protocolkuna waa meelaha dowladnimada laga eego haddaad hagaajiso protocolka dowladnimada waad hagaajiso runtaa waa la eega waa la faaleeyaa horta waxaa protocol dhan oo buuxa ayaa la siiyey madaxweynaha waxaanaad qiyaastaa had iyo jeeraale delegationka ka hortegaya madaxda imanaysa miisaanka ay leeyihiin bacdamaa loo doortay Peter Munya inuu madaxweynaha ka hortago 4 xil buu isku hayaa baan kuli waa 4 wasaaradood ragga ugu dhowdhow siyaasiyan iyo mabda'iyan madaxweynahana ka mid weeyi faalla badan baad maqlaysaa lagu oranayo the future president madaxweynaha soo socda haba u dhaafin meel kale Peter Munya marka loo diray waa la weyneeyey full protocol waa la siiyey aad iyo aad baan uga mabsuutaan markaan daawanayay hal urso soo noqon marka xaggii siyaasadda iyo arrimaha ay ka wada hadleen maxaa ilaa hadda socdaalada diblomatisku ama madaxweynayaashu marka hore waa saaxiibtinimo markaasoo courtesy visit isbarasho waase la israacayaa marka loo heelan yahay labada dal isku heelan yihiin isbarashadii oo courtesigiiya iyo wax wada qabsigii inta ay muuqataa ilaa shalay toole soo dhaweyntii casuumadii laakiinse wax kala qorashadii kulli way imanaysaa saxiixana ila insha Allah ilaa caawa ilaa beritoole wixii la kala saxiixday waynu heli doonaa haddii alla yidhaahdo si kooban waxaad u sharaxdaa maxay Soomaaliland iyo Kenya ay wadaagi karaan ganacsiga markay noqoto siyaasadda markay noqoto sheegtayo waa wadamo isku taariikh ah wadamo mustacmaradu ay wada isku mustacmaradaha wadamo ka qayb qaatay ciidamada ka wada qayb qaateen dagaalkii labaad marka laga yimaado wixii hore dhan waqtigan xasaasiga ah gobolka ay ka socdaan isbedeladu maxay iskala jaan qaadi karaan Soomaaliland iyo Kenya horta de siyaasadda ayaa manbaca source-ka wax walba ka soo baxaan iyada goysa badalaa labada qofkii aad isku mowqif noqotaan aad isku mabda noqotaan wax kasta waa idin dhaxbari karaan kow saaxiibtinimo joogta ah oo la istaageero oo la isku soo gurmado oo shirarka adduweynaha la isugu imanayo la israaco waa kow tii siyaasadii laba baaxmushterigu wax xidhan maaha saan u sheegay haddii Kenyan Airways halkaa hadday timaado waa unigii ugu horreeyey ama albaabkii ugu horreeyey ee wax walba ay ka furmayeen oo baaxmushterigii lama kala qaadqaada baaxmushteri waa waxaa ballaaran weeyaan moogtahay garab siyaasiye ood meel ka wada codaysaan baaxmushterigii oo isku furma dadkii oo isku furma people to people aniga idiin sheega diyaaraduhu waa flag carrier wax sidaan waayahay markii kulankana dhacay markii martiqaadku yimi madaxweynuhu Kenya tegey saan la wada socono waddankan jaarkan lahaa ee Soomaaliya la isku kala jiray jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin iminka aynu kala baxnay Soomaaliland madaxweynaha la soo noqotay arrintan waxay ka muujiyeen dareen xasaasiyada ay ka muujiyeen saaska waxa soo baxay in ay xiriirka si rasmi ah ugu jireen Kenya maamulka Muqdisho caraduna waxa weeyaan mid ka dhalatay sida la leeyahay martiqaadkan iyo booqashada madaxweynaha Soomaaliland arrimahaasi maxay inoo muujinayaan horta waxyaalo badan baa ka khaldan moogtay haddii diplomasiga garanayaan international relationska dawlad ma oran kartid maxaad habeen u soo martiqaaday south of the protocol dibadda ayay ka taagan tahay diplomasiga iyo protocolka wax la yidhaahdo haddii mowqif ahaan idinku aad isku xumaataan anybody cidday doonaan bay soo martiqaadi karaan mowqifka ugu weynee Kenya aynu saaxiibtinimada gaarka ku yeelanaa waxa weeyaan horaanu carabaabay Northern Frontier District gobolkii la oran jiray
xidigtan cadee dhibaatada ay noo geysatay gees ka mida ay leedahay ay ka tahay Kenya kama go'aso waa part and parcel of Kenya iyana waxay leeyahay waa qayb naga mid ah anaga ka ugu horeeya ku kala dhaqan horta nimanka wacaankaas boogta ixtiraam baa jira dawladda kortisi baa jira dhaqan aynu lahayn buu ahaayay af kalun baa lagu sheegay moogta maandho asxaan lagama tago eed haddaad fali adoo dhib samaynaya haddana wanaag lagama tago sideed u odhan kartaa dawlad kula mida sidaada kuwaana uma yeertid kuwaa maana yeeri kartid it's quite ridiculous laga xishooday weeyaan ila soo bartaan dawladda weeyaan moogta iyagay jirtaa iyagay u taallaa dad waa qayb iyaga u taallaa laakiin innaga waxay nala da'a saaxiibtinimo inaynu wanaagsan ka samaysano not only Kenya jaarka oo dhan mowqif idinku qof ku kala duwan baad wax ku heshiin kartaan marka iyada tooda ha wataan inuu wadana moogta waxaa ugu dambeyntii Suudi adoo halay waxaan ku weydiinayaa arrinta ku saabsan nabadgelyada ay ka wada hadlayaan labada dhinac iskaashi ay ka yeelanayaan sidii ay iskaashan lahaayeen waxaan ognahay in arrinta ugu weyn ee geeska Afrika ama gobolka maanta ka jirta ay ahayd ka talinta nabadgelyada badda cas iyo gacanka cadmeed arrintaana kulli dawladaha gobolku way ku wada jiraan hasaatee Soomaaliya iyadu dhinac bay iska taagtay aan iyada khusayba marka soo koobno Somaliland iyo Kenya xagga nabadgelyada maxay iska kaashan karaan wax badan bay iska kaashan karaan horta nin rhetoric nin hadlay oo arrin siyaasiyay inay ka hadlay haddii aanay khuseyn halkeeda looguma tago lama qaato ninkayni gacanka cadbeed baan ka talinayaa iyo arrimaheeda waa riyadii hore ee ahayduun anaa dalka ka taliya Somaliland anaa ka taliya the Gulf of Aden innagaa ku waajahan wixii ka dhaca iyo nabadgelyadiisa lifeline weeyaan oo maraakiib badan baan bartaa qofka lagala tashanaya waa innaga iyaga maaha laakiin nin hadalkii riyada ahaa ee anaa ka taliyadii de waa halkiisa waa nin iska yidhi nin hadlay waa nin hadlay weeyaan moogtaa Indian Ocean ka badda weyn ee Indian Ocean ka taladeeda leeyahay dhulkooga maraha de wax kala garanayaan de haddaan soo noqdo xagga iskaashiga nabadgelyada waxa dawladaha ugu weyn ay iska kaashadaan marka la yiraahdo nabadgelyo waa wadaag inay wadaagaan informationka ama wararka ku saabsan wixii security oo dhan haday tahay burcadadeed iyo haday tahay shir meel lagu qabanayo la tashanayo wax ka weyn xagga security-ga in information la sheergareeyo ma jiro innaga Kenya ka ugu weyn ugu horeeyeen ka wadaagana haddii labada madaxweyne soo hadal qaadeen waxay ila tahay inuu markaa yahay waxa kale detailka ee jajabka hoosana de waa arrimo dawladaha u yaala arkaas waxaa ka daawadayaal intaas ku soo gabagabeynaa waraysigan kooban aan ula yeelanay khabiir Axmed Yuusuf Cilmi oo Suudi oo dabcan khabiir in badan ka shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland lana shaqeeya wasaaradaha kale ee dalka sida wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadda la ka yahay la taliye sare Suudi aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa barnaamijkan kooban aan ku waraysanay iyo waqtigan siisay aad baan kugu mahad celinaynaa